xafladda hameenka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Minnesota. Wariyaheenna Deeq Darajo ayaa warbixinta warkaasi Minnesota nooga soo diray. waxaa gobolka Minnesota lagu qabtay munaasabad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ururada bulshada, ganacsato, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale oo ka kala timid gobolada Mareykanka, Canada, Norway, Sweden, Denmark, Indonesia iyo xubno ka socday dowladda federaalka Soomaaliya. Munaasabadan ayaa lagu xusay sanad guuradii 9aad ee habeenka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaalida. waxaana munaasabadan soo qaban qaabiyay Aadan Ugaas Axmed isagoo ugu horeyn u mahadceliyay dadkii munaasabada ka qayb galay, wuxuuna sheegay in ay muhiim tahay in la muujiyo sharafta iyo wanaagga haldoorka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. xafladan oo ah mid sanad walba la sugo ayaa waxaa abaalmarin la guddoonsiiyey dad kala duwan. sanadkan waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey Abuukar Axmed Maxamed oo ku magac dheer Abuukar Shiino. waa mid ka mid ah laacibiintii ugu wanaagsanaa xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda kolayga, isla markaana ahaa tababaraha gabdhaha xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda kolayga. waxaa la guddoonsiiyey abaalmarintii ugu qaalisaneed. waxaa sidoo kale abaalmarintaasi la mid ah la guddoonsiiyey Maryan Ibraahim Jaamac oo ku magac dheer Qaynuun, oo ka mid ahayd gabdhihii xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda kolayga ugu firfircoonaa, isla markaana ay tiigsan jireen gabdho badan. Caaisha Nuur oo ah gabar maqalka la oo Quraanka Kariimka dhameysay ayaa iyada iyo macalimadeeda Idil Maxamed la siiyey abaalmarin kaasi oo dadkii ka soo qayb galay xafladda ku abuurtay qalbiyadooda khushuuc. hadiiba Caaisha oo maqalka la ay Quraanka Kariimka 114tiisa ay xafiday, taasi oo dad badan ay isweydiiyeen maxaa hortaagan annaga. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta ganacsadaha ugu wanaagsan ee sanadkan, kaasi oo sanadkan noqday ganacsadihii ugu wanaagsanaa gobolka Minnesota, bil kadibna noqday ganacsadaha ugu wanaagsan dalka Mareykanka, kaasi oo ugu dambeyn aqalka cad ee Mareykanka lagu guddoonsiiyey bilad sharaf. Doctoresa Deeqa Xuseen oo ah hooyo Soomaaliyeed oo 7 caruur ah leh oo waxbarashada ka gaartay heerka sare ee PhD-da kana haysa xil sare wasaaradda waxbarashada gobolka Minnesota, waxayna abaalmarintan ku muteysatay in ay tusaale u noqotay hooyooyin badan. Fartuun Cusmaan oo ahayd ciyaartooydii kubadda kolayga iyo orodada, isla markaana ah tababaraha xulka qaranka gabdhaha Soomaaliyeed ee kubadda kolayga, isla markaana ah xubin ka tirsan FIFA, ayaa la siiyey abaalmarinta isbeddelka iyo horumarinta bulshada. Fartuun ayaa abaalmarintan ku muteysatay doorka ay ka qaadatay horumarinta ciyaaraha kubadda kolayga iyo soo barbaarinta jiilka mustaqbalka dambe ee la filayo in ay guulo u soo hooyaan bulshada Soomaaliyeed. Xasaney Maxamed ayaa abaalmarinta isbeddelka iyo horumarinta bulshada ku muteystay kadib markii uu door weyn ka qaatay la dagaalanka maandooriyaha iyo dhibaatooyinka qoyska burburiya. wuxuu sidoo kale garab iyo gaashaan u yahay waalidiinta ay soo wajahaan dhibaatooyinka ugu yimaada waxyeelada caruurtooda ku dhaca. Deeq Darajo, Universal TV, Minnesota.